madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa dhagax dhigay jaamacadda Islaamiga ah ee Jigjiga taasi oo noqon doonto xarun waxbarasho oo casri ah laguna horumarin doono cilmiga diinta. jaamacaddani ayaa ah mid lagu dhisayo isku tashi bulsho halka xukuumaduna ay ku taageertay dhulka laga dhisayo oo dhan 1.5 hektar doorkeedana ay ka qaadan doonto. munaasabadda dhagax dhiga waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan xukuumadda deegaanka oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka deegaanka mudane Ibrahim Usmaan Faarax culimada deegaanka waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Jigjiga. jaamacaddani oo ay ku baxayso lacag dhan 1.4 bilyan oo bir ayaa bixin doonta culumta shariicada waxayna ka kooban tahay 3 kuliyadood oo kala ah kuliyadda shariicada iyo qaanuunka, kuliyadda luqadda carabiga iyo kuliyadda waxbarashada. waxayna noqonaysaa jaamacaddii labaad ee islaami ah ee uu yeesho isbeddelka kadib deegaanku. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo munaasabadda dhagax dhiga ah ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa. hadda dowladda jirta ay aaminsan tahay inaan suurtagal ahayn in dhammaan dadka xoriyadooda la siiyo, diintooda loo ixtiraamo mooyee inaan dalkooda socon karin. arrintaasina arrin la isa siinayo oo muxuu ahaay rabitaanka cid gaara ku xidhan inay noqotona ma aha. waa arrin halgan ku timid, dad baa loo xidhay, dad baa u dhintay, dhibaatooyin badan baa ka dhacay, ururo dhan oo waxaa kacay baa yaa jiray. haddana waa sidii oo kale un kolba midnimada shacabku uu muujiyo iyay ku xidhan tahay xuquuqda uu helaya. kolka arrintaas runtii waxaan aad ugu bogaadinayaa xukuumadda aan ka tirsanahay ra-iisul wasaare Abiy uu hogaaminayo oo dhanka diinta isbeddel ballaaran ka samaysay. ugu dambeyn xukuumaddu way garab istaagaysaa wixii taageero ahna haddii la yidhaa waan ka qayb qaadanaynaa maadaama diiniyan beriyahan waxaa isdiidan yabaha iyo awaamiirta diinta ahaa hoos wax u bixiya yaa isdiidan beriyahan. marka waxaan anagu jecel lahay inaan taa diinta hore raacno oo culummada aan gaar ula fadhiisanno wixii aan samaynayna haddii la yidhaa. waad mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه سلام يا دمانتي.